waxaa muuqaalkan ku marti ah dalka aad intiina badan la socotaan wararkiisa isla markaana ka mid ah dalalka inta badan saaran shaashadaha caalamka. muuqaalkanna kuma saabsana xaaladda cakiran ee ka jirta Yemen, balse waa mid aan ku dul istaagi doono dhinacyada kala duwan ee uu leeyahay dalkan da'da weyn. waa mid ka mid ah dalalka leh taariikhda miisaanka culus, wuxuuna la baratamaa Masar iyo Ciraaq marka la eego xadaaradda. waxaana xusid mudan inay qabaan culimada qaar in xadaaradda Yemen tahay midda ugu qadiimsan taariikhda bashariyadda iyo sidoo kale inay tahay asalka Carabta. mar waxaa ka talin jirtay Balqiisa oo maamuli jirtay boqortooyadii Saba. boqoraddaana waxay nooleed xilligii Nabi Suleymaan, waana mid lagu sheegay Qur'aanka. sidoo kale waxaa la sheegaa inay Yemen tahay halkii ay deganaayeen qowmucaad. sida rasmiga ah waxaa la yiraahdaa Jamhuuriyadda Yemen, waana dal dhaca galbeedka Aasiya, gaar ahaan jasiirad lamoodka Carbeed ama Arabian Peninsula. wuxuu xal la leeyahay dalalka Sacuudiga iyo Cumaan. galbeedkana waxaa kaga beegan Badda Cas, koonfurtana waxaa ka xiga Gacanka Cadan, halka barigana ay ka xigto Badda Carbeed. bed ahaan waa dalka 49aad ee ugu dhulka weyn caalamka, wuxuuna ku fadhiyaa bed ka badan 500 oo kun oo kiiloomitir isku wareega. juqraafi ahaan dhulka Yemen waxaa loo qeybiyaa ilaa 4 qaybood, waxayna kala yihiin 4taasi qaybood: gobolka dhulka siman ee xeebta ah, gobolka buuraleyda, gobolka taagaga iyo gobolka qalalan ee saxaraha ah. tirada dadka dalkan waxaa lagu sheegaa 28 milyan, boqolkiiba 92.8 waa Carab. qowmiyadda labaad ee ugu badanna waa Soomaali, waxayna ka yihiin dadka dalkan boqolkiiba 3.7. waxaa dalkan ka jira kooxo u abaabulan hab beeleed oo haystaan hub fara badan, waxaana had iyo jeer dhaca dagaallo u dhexeeyo maleeshiyo isu diriraysa hab beeleed. qaadkana ama jaadku muhiim ayuu ka yahay dalkan, wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha sida maalinlaha loo cuno. waxaana dhaqan iyo caado ka ah dalkan in dadku isugu tagaan qolo la yiraahdo dawaawiin, halkaasina saacado lagu qaylo. xitaa waa la isku marti qaadaa qaadka, waxaana dalka intiisa badan looga yaqaanaa quutu saalixiin ama quudka awliyada. qaadku waa dhibaato weyn oo dhanka beeraha iyo dhaqaalaha ah, waxaana lagu beeraa rubuc ka mid ah dhulka ku wanaagsan beerashada, wuxuuna booska kala baxay dalagyo badan oo ay ku tiirsaneyd Yemen sida bunka. waxaana dhanka beeraha ka shaqaystaan boqolkiiba 54 oo ah dadka muruqmaalka ah. wax soo saarka beeraha ayaana GDP-ga dalkan ka ah boqolkiiba 20. dadka dalkan waxaa lagu sheegaa boqolkiiba 27.3 inay yihiin reer magaal, halka reer miigana lagu sheego boqolkiiba 73.7. inta aqoon la'aanta ahna waxaa lagu sheegaa boqolkiiba 38.8. boqolkiiba 80na waa kuwa degan dhulka sareeya. dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ay ku xoogan tahay Shiicada, gaar ahaan qaybta la yiraahdo Yaziidiyada. dadka degan gobolka bariga fog dhaca ee Mehra waxay ku hadlaan luuqad u gaar ah. sidoo kale dadka ku sugan jasiiradda Suqadra waxay ku hadlaan luuqadda Suqadriga, waxaana diiwaan gashan inay dadka degan jasiiraddan ka soo hijroodeen gobolka Mehra. waa mid ah archipelago oo ka kooban ilaa 6 jasiiradood, waxayna dhacdaa badweynta Hindiya. bedka ay ku fadhidana waa wax ka badan 3,000 oo kiiloomitir isku wareega, waxayna leedahay dhir u gaar ah oo aan meel kale ka bixin. waxay Soomaaliya u jirtaa 240 kiiloomitir, halka Yemen oo maanta lagu tiriyana u jirto 380 kiiloomitir. waana taas sababta xoojinaysa dooda ah inay Soomaaliya leedahay jasiiraddan. Yemen 2 jeer ayaa Qur'aanka Kariimka lagu sheegay, waxaana lagu kala sheegay suuradaha Saba iyo Axqaaf. qaar ka mid ah xafladaha guur ee Yemen waxay socdaan ilaa 21 maalin, waxaana ka mid ah ciyaaraha laga ciyaaro mid loo yaqaano albaraca, oo sidoo kalena loo yaqaano ciyaarta jaceylka iyo dagaalka, raqsatul xubbi wal xarb. sidoo kale waxaa dalkan dhaqan ka ah in raggu ay ku hubeysnaadaan toorey, taasoo muujinaysa inuu qofka mar walba diyaar u yahay dagaal. bunka ama kafeega caanka ka ah dunida ee loo yaqaano mocha asalkiisu waa Yemen, meeshii ugu horeysay ee laga soo saarayna waa magaalada Muqa ee dhacda dalka Yemen. waxaa jiraan kutubo gaar ah oo sheegayaan in magaca Afriqiya oo Carabi ahaan loola jeedo Afrika inuu ka yimid boqorkii Yemen ee la oran jiray Afriqiis bin Dilmanar. buurta ugu dheer dalkan waa mid lagu magacaabo Annabiyu Shucayb, wuxuuna jooggeedu gaarayaa 3666 mitir. Yemen waxaa lagu sheegaa dalka laga helo ceelka ugu yaabka badan caalamka, kaasoo lagu magacaabo ceelka Barhuud. waxaa jirta sheeko caan ah oo ku saabsan ceelkan. waxaa la sheegaa mid ka mid ah boqoradii boqortooyadii Xamayr in uu kaashaday jin si uu ugu qodo god aad u weyn uu ku keensado keedka ama hantidiisa. kadib markii uu geeriyooday boqorkaasina ay godka degeen kooxdii jiniyada ee uu adeegsan jiray, waxaana haatan loo yaqaanaa magaaladii jinka ama ceelkii madooba. sidoo kale waxaa ka mid ah sheekadan
in godkani yahay xabsi ay leeyihiin jinniyada kuna xiraan qofkii amarkooda diida.